Maraykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogay Turkiga oo ay ka wada tirsan yihiin isbahaysiga gaashaanbuurta NATO kadib markii Turkigu uu gacan ku dhigay gantaalada difaaca ee Ruushku farsameeyo kuwaas oo ka dalbaday sanadkii la soo dhaafay. Maraykanku wuxuu sheegay in qalabkaas gantaalada ee S-400 ee Ruushku lagu farsameeyay uu yahay mid aan la jaan qaadi karin tiknoolajiyadda NATO, sidoo kalena uu khatar ku yahay isbahaysiga Euro-Atlantic. Cunaqabateynta ay ku dhawaaqday waaxda arrimaha dibadda maalintii Isniinta ee ka dhanka ah Turkiga waa mid lagu bartilmaameedsaday waaxda soo iibinta hubka ee dalkaasi Turkiga. Tallaabadaas waxaa si degdeg ah u xambaareeyay mas'uuliyiinta dalalka Turkiga iyo Ruushka. Maraykanku wuxuu mar hore Turkiga ka saaray barnaamijkiisa diyaaradeed ee F-35, taasina waxay ahayd tallaabo oo Turkigu jawaab uga dhigay inuu soo iibsado gantaalada kale ee Ruushku farsameeyo. Wuxuu Maraykanku haddaba su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah wuxuu Maraykanku diidan yahay. Maraykanku wuxuu si cad Turkiga ugu sheegay weliba heerkii ugu dambeeyay in qalabka gantaalada ee S-400 oo halis gelinayo amniga tiknoolajiyadda Maraykanka ayna dhaqaale badan ka soo geli doonaan waaxda difaaca ee Ruushka, iyo sidoo kale in hubkan uu halis gelinayo ciidamada qalabka sida ee Turkiga iyo wasaaradda difaaca, ayuu yiri xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Mr. Mike Pompeo. Sidoo kale iyadoo arrintaasi ay jirto, Turkigu wuxuu go'aansaday inuu soo iibsado gantaalada S-400, ayuu yiri Mr. Pompeo oo hadlayay. Cunaqabateyntan ayaa lagu bartilmaameedsaday madaxa agaasimka laanta difaaca ee dalkaasi Turkiga Ismaaciil Taymar iyo 3 kale oo shaqaale ah. Waxaa ka mid ah cunaqabateyntan mamnuucada ogolaanshaha dalkugalka Maraykanka iyo sidoo kale in la xanibo wixii hanti ah ee u yaala goobaha Maraykanku awood u leeyahay. Muxuu cunaqabateyntan ka yiri Turkigu? Xukuumadda Ankara waxay ku doodaysaa in sababta ay hubkan uga soo iibsatay Ruushka ay tahay kadib markii Maraykanku uu diiday inuu ka iibiyo gantaalada Brentiolka ah ee uu sameeyo. Saraakiisha Turkigu waxay tilmaameen xaqiiqada in Giriiggu oo ah xulufada kale ee ka tirsan gaashaanbuurta NATO ay haystaan gantaalada S-300, inkastoo taas gantaaladaas aan laga soo iibin Ruushka. Wasaaradda arrimaha dibadda Turkiga ayaa Maraykanka ugu baaqday inuu dib uga fiirsado go'aankaas cadaalad darrada ah ee lagu dhawaaqay. Waxay sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay in Turkigu uu diyaar u yahay inuu wax qabad kasta arrintan. Waxay sidoo kale sheegtay wasaaraddu in Turkigu uu diyaar u yahay inuu wax ka qabto arrinta iyadoo loo marayo wada hadallo diblomaasiyadeed oo waafaqsan xeerarka isbahaysiga gaashaanbuurta NATO. Wasaaraddu waxay ka digtay in cunaqabateynta Maraykanka ay sameeyeen ay xumayn doonto xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Maraykanka, taasina ay horseedi doonto yiraahdeen in Turkiga uu aargoosto xilliga ugu habboon. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Ruushka Sergey Lavrov ayaa sidoo kale cambaareeyay go'aanka Maraykanka, isagoo tilmaamay muujin kale oo la xiriirta dabeecadda isla weynida ah ee Maraykanka, taasi oo ka dhan ah shuruucda caalamiga ah.
sidee ayuu Turkiga muhiim ugu yahay gaashaanbuurta NATO? Turkiga ayaa leh ciidanka labaad ee ugu badan gaashaanbuurta NATO 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta. Turkiga waa mid ka mid ah xulafada Mareykanka ugu muhiimsan NATO, wuxuuna ku yaal meel istiraatiiji ah waxa uu xuduud la wadaagaa Suuriya, Ciraaq iyo Iiraan. Wuxuu sidoo kale door muhiim ah ka ciyaaray dagaaladii Suuriya isagoo hub iyo gantaalo military siiyay qaar ka mid ah kooxaha mucaaradka. Si kastaba ha noqotee, Turkigu wuxuu arkay inuu sii xumaanayo xiriirka qaar ka mid ah xubnaha NATO iyo Midowga Yurub, kuwaas oo Mr. Erdogan ku eedeynaya keligii talisnimo iyo arrin caburin ah.